fanaanka Qamar Suugaani ayaa bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu ku soo qoray qoraal u dhigan hambalyo waxa uuna ugu hambalyeynayay arooska Cabdirasaaq Anshax iyo sida oo kale marwadiisa Ayaan Loof. Qamar Suugaani oo ay ka wada tirsanaayeen Cabdirasaaq Anshax xidigaha geeska ayaa bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu ku soo qoray qoraalkan uu ugu hambalyeynayay Cabdirasaaq Anshax waxa uuna u dhignaa sida tan: kaminsuun arooska Cabdirasaaq Anshax iyo sida oo kale marwadiisa Ayaan Loof ha loogu cimaamado ayuu ku soo qoray qoraalkan asagoo kala jeedo in dhowaan Cabdirasaaq Anshax uu aqalgali doono isla markaana uu la aqalgalayo Ayaan Loof. fanaaniin dhowr ah ayaa sida oo kale hambalyo waxay u soo dirsay Cabdirasaaq Anshax isla markaana ku aadan guurkiisa cusub. dhammaan waxa ay ka midaasnaayeen ama si wada jir ah ay u sheegeen inay u hambalyeynayaan arooska cusub ee Cabdirasaaq Anshax. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawade, halkan waa barta YouTube ee warbaahinta wararka maanta. haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee warbaahinta wararka maanta, waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee mar waliba hela isla markaana haleela xogaga wararka, warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee halkan aan idinkugu soo gudbinayno. sida oo kale daawada waxaynu kaa codsanaynaa muuqaalada aynu ku soo gudbinayno haddii ay noqdaan kuwa aad ka hesho in asxaabtaada aad u sii sheergarayn karto si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan bartan YouTube ee warbaahinta wararka maanta. daawade waad ku mahadsan tahay booqashada aad soo booqatay bartan YouTube ee warbaahinta wararka maanta. hambalyo ayaynu leenahay, hambalyo ayaynu leenahay. haddii aynu nahay barta YouTube ee warbaahinta wararka maanta, waxaynu hambalyo leenahay arooska cusub ee alfanaan Cabdirasaaq Anshax iyo sida oo kale marwadiisa Ayaan Loof oo dhowaan lagu wado in arooskooda uu ku qabsoomo magaalada Hargeysa. waxaynu leenahay mar kale hambalyo. waxaynu ku guda jirnaa hambalyeenta ku aadan arooska alfanaan Cabdirasaaq Anshax iyo sida oo kale marwadiisa Ayaan Loof. fanaaniin dhowr ah ayaa hambalyo iyo bogaadin ku aadan arooska u soo diray fanaanka Cabdirasaaq Anshax, annagoo mid aynu u eegi doono fanaaniinta dhowrka ah ee u soo hambalyeeyay fanaanka. waxaynu ka bilaabi doonaa ugu horeyn fanaaniinta ay halka dalad wada harsadaan oo ah xidigaha geeska isla markaana ay ka wada tirsan yihiin kooxda, iyo sida oo kale fanaaniin horey ee uga wada tirsanaan jireen xidigaha geeska oo haatan isaga baxay oo dhammaantoodba ka simnaa hambalyada iyo bogaadinta maalinta farxadeed ee ku aadan aqalgalkiisa u soo dirayay fanaanka Cabdirasaaq Anshax iyo sida oo kale marwadiisa Ayaan Loof. waxaynu ugu horeyn ka bilaabi doonaa oo sida warbixintaba hordhaceeda aad ku soo aragteen alfanaan Qamar Suugaani oo qayb ka ahaa fanaaniinta dhowrka ah ee u soo hambalyeeyay Cabdirasaaq Anshax. warbixin gaar ah oo hambalyo ahayd oo bartiisa gaarka ah ee Facebook uu ku soo qoray ayaynu eegi doonaa iyo sida uu ula dhacsan yahay arooska iyo hambalyada iyo bogaadinta uu u diray. qoraalkan gaarka ah ee hambalyada u muuqdo isla markaana uu ku soo qoray barta gaarka ah ee baraha bulshada uu ka isticmaalo ee Facebook, Qamar Suugaani ayaa waxa uu ugu hambalyeynayay Cabdirasaaq Anshax iyo sida oo kale marwadiisa Ayaan Loof. fanaanka Qamar Suugaani ayaana waxa uu ku cabirayay dareen ku aadan sida uu ugu faraxsan yahay in Cabdirasaaq Anshax xilligan uu markaasi yeesho reer. qoraalka gaarka ah ayaana waxa uu qornaa sida tan: kaminsuun ayuu ku bilaabay oo markaas uu kala jeeda sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaa xigay arooska Cabdirasaaq Anshax iyo marwadiisa Ayaan Loof.
ha loogu cimaamado oo markaas uu kula hadlayo asxaabta gaarka ah ee ku xiran barta gaarka ah ee baraha bulshada uu ka isticmaalo ee Facebook, asagoo markaas ka dalbanaya ama ka codsanayay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay comments, like iyo share ay markaas ku tusaan dareenka muujineed ay ku muujinayaan sida ay ula dhacsan yihiin arooska Cabdirasaaq Anshax. waxaynu eegi doonaa haddaba bartan gaarka ah ee baraha bulshada ee Facebook uu ka isticmaalo alfanaan Qamar Suugaani marka uu soo dhigay qoraalka u muuqday hambalyada. imise ayaa ka falcelisay oo markaas comments ka bixiyay. sidaas oo kale waxaynu eegi doonaa imise laag ayuu helay fanaanka Qamar Suugaani hambalyada iyo bogaadinta inta uu u dirayay alfanaan Cabdirasaaq Anshax iyo sidaas oo kale marwadiisa Ayaan Loof. waxaynu eegi doonaa fanaaniin dhowr ah oo sida oo kale kasoo falceliyay arrinkan. intayna u guda gelin fanaaniinta dhowrka ah ee sida oo kale hambalyada iyo bogaadinta diray, qoraalka Qamar Suugaani uu ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu helay 1300 oo markaas laag iyo loof isugu jirto, isla markaana asxaabtiisa ay sidaas oo kale ku tusinayaan, isla markaana ay markaas la wadaagayaan farxadda ku aadan hambalyada arooska ah. sida oo kale 94 comment ayaa laga bixiyay, waxaana sheergareeyay muuqaalkaas 7 ruux. waxaynu qoraalkan soo qaadanay marka uu yaalay 2 maalmood ama 2 cisho. asxaabta ayaynu ku eegaynay sida markaa ay kaga dareen celiyeen ama falcelintooda ku aadan inta laag iyo comments ay ka bixiyeen muuqaalkaas iyo sheerta sida ay u sii raacsiiyeen. fanaan Cabdirasaaq Anshax, fanaaniinta gaarka ah ee sida oo kale hambalyada iyo bogaadinta ku aadan arooskiisa u hambaliyay ayaa waxaa qayb ka ahaa alfanaan Maxamed Saciid Bikoy oo ay ka wada tirsan yihiin xidigaha geeska. sida oo kale fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo bari ay ka wada tirsanaan jireen xidigaha geeska isla markaana ku sugan America ayaa waxa uu qayb ka noqday fanaaniinta hambalyada iyo bogaadinta ku aadan arooska la wadaagay Cabdirasaaq Anshax, isla markaana ugu hambaliyay maalintiisa farxadeed. fanaaniinta hal iyo laba kuma soo koobi karno oo aad ayay u fara badnaayeen, iyagoo qaarkood muuqaalo iska soo duubay halka qaarka kalena bogogooda gaarka ah ay ka isticmaalaan baraha bulshada sida Facebooka iyo Instagramka, Twitterka ugu soo hambaliyay alfanaan Cabdirasaaq Anshax. fanaanka sida oo kale Suldaan Saraar Guhaad oo haatan ku sugan Hargeysa ayaa waxa uu qayb ka noqday fanaaniinta hambalyada iyo bogaadinta ku aadan arooska ugu soo hambaliyay Cabdirasaaq Anshax. annaguna ugu dambeyn mar kale waxaynu leenahay hambalyo aroos wacan ayaynu leenahay Cabdirasaaq Anshax iyo sida oo kale marwadiisa Ayaan Loof oo dhowaan lagu wado in arooskooda uu ku qabsoomo magaalada Hargeysa. waxaynu leenahay hambalyo asxaabta ku xiran halkan. sida oo kale waxa aynu leenahay annagoo ka wakiil ah hambalyo waxaynu ka codsanaynaa in sidaas oo kale qaybta commentiga aynu ula hambalyeeyeen arooska Cabdirasaaq Anshax.